asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaanu wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada muuqaalkeena maanta oo aynu ku gorfayn doono suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo furan, kooxuhuna ay samayn karaan heshiis walba oo ay doonaan. kusoo dhowaada warbixinada alaba si maalinla ah ayaad u maqashaan. waxaanan inta badan kusoo bandhignaa warbixinada laga qorayo kooxaha waaweyn sida kooxaha lixda ah ee horyaalka wadanka ingiriiska, Spain oo aan labada kooxood ee ugu waaweyn sida Madrid iyo Barcelona aan kasoo qaadano, si lamid ah Atletico de Madrid iyo warka ka jira Talyaaniga, si lamid ah kooxaha waaweyn iyo warbixinada laga qorayo ayaan inta badan kusoo bandhignaa muuqaalada aan soo diyaarino. si lamid ah ka reebin Paris Saint-Germain iyo Bayer oo Bundesliga iyo Ligue 1 ka dhisan. Channelkan Madala Sporti waa mid aan kusoo bandhigo xogaha ugu dambeeya ee ciyaaraha, waana mid sportiga u gaarka ah oo wax ka duwan aan lagu soo bandhigin. saaxiib, waxaan ka codsanayaa inaad channelkan kusoo biirto oo aad subscribe saarto, si lamid ah muuqaalada aad daawanaysana aad like saarto si channelku uu u noqdo mid YouTube-ku u aqoonsto. haddaba wararka suuqa ee maanta taagan haddii aynu eegno waa 1 Julaay, maalinta xurriyadda Soomaaliya, waana maalintay israaceen. wax walba markii laga hadlayo lagama tegayo qadiyadeena ama dhalashada in nala aqoostay oo dunida aan wax ka noqonay maanta oo kale. waan fahmay in aad ila fahanteen taana. markan haddii aan u gudagalno wararka suuqa kala iibsiga ee isla waqtigaani taagan, naadiga kubadda cagta ee Aston Villa ayaa ku rajo weyn xiddigooda Jack Grealish oo ku sii jeedo horyaalka wadanka Ingiriiska kooxda kala dhisan ee Manchester City. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa la warinayaa in ay heshiiska shaqsiga ah la gaartay xiddigan, sida uu warinayo wargeysyada ka soo baxa gudaha wadanka Ingiriiska ee Telegraph ayaa warinaya in Man City ay gacanta ku dhigi karto Grealish oo 100 milyan ku fadhiya kadib markii uu tartanka Euro soo idlaadana. waxaa la warinayaa in xiddigan uu mari karo dhanka iyo kooxda Manchester City ee garoonka Itixaad ku ciyaarta. waxa uu bedel u noqon karaa xiddiga badan oo la filayo in ay ka baxaan qadka dhexe ee kooxda Manchester City. Ilkay Gundogan iyo Bernardo Silva ayaana markan la warinayaa inay ka holeeli karaan mar haddii uu soo caga dhigto garoonka Itixaad ninka garabka ka ciyaara ee kooxda Aston Villa, Jack Grealish, kaasi oo xulka Ingiriiska kala qayb galaya tartanka Euro. geesta kalena Juventus ayaa fulaysa amaba filaysaba in Cristiano Ronaldo uu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa dhowaan kadib markii xulkiisa qaranka laga reebay tartanka Euro 2021 ka socda. tartankan Euro waxaa lagu magacaabaa Euro 2020, inkastoo sanadkan la ciyaarayo haddana dib u dhac ku yimid sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay. marka Tutto Sport ayaa qoraysa in xiddigani uu go'aan gaari doono. Ronaldo+missi waxa uu dhacay heshiiskiisii uu kula jiray kooxda Barcelona. wadahadallo aan horumar lahayn ayay kula jiraan madaxda Barcelona, inkastoo la filayo inuu xiddiganu heshiis cusub saxiixo. haddana waqtiga aan kula hadlayo Ronaldo+missi wax kooxa ma haysto oo waa koox la'aan. Ronaldo+missi ayaana waayihiisa kubadda cagta weligii aan koox la'aan noqon tan iyo markii uu ahaa ninkan 5 jir ilaa iyo waqtigan wuxuu ahaa mid ka tirsan koox mushaarna ka qaata, laakiin waqtigan ma ahan mid ka mid ah xiddig koox u diiwaan gashan oo waa uu dhacay heshiiskiisii xalay 6 saac habeenimo ayuuna ku qoran ama ku ekaaba heshiiska uu kula jiray naadiga Barcelona. xulka qaranka Argentina ayuu kala qayb galayaa tartanka Copa America isagoo u soo baxay markan wareegga 8-damaadka ee tartankaasi, wuxuuna doonayaa inuu sanadkan kula guuleysto. ha yeeshee heshiiska naadiga Barcelona oo uu ka dhacay, haddii warbixino ka soo kordhaan waad maqli doontaan. naadiga kubadda cagta ee Manchester United-na waxay indhayaal u dirtay kulanka Faransa iyo aan halkaasi ku celiyo markan kulanka Manchester United indhayaal u daawado ayay u dirtay kulankii Faransa iyo Switzerland ee laga reebay xulka qaranka Faransiiska tartanka Euro. waxayna doonayeenba xiddiga khadka dhexe ee Ander Rabiot, kaasi oo Juventus ka tirsan. wargeyska Star ayaa qoraya in xiddigani uu ku wajahan yahay gudaha wadanka Ingiriiska kadib markii xiddigan laga reebay xulka Faransiiska tartanka Euro. waxuu doonayaa in uu markan ka jawi bedesho Talyaaniga oo uu ka tirsan yahay naadiga Juventus. isla Juventus ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro saxiixa qadka dhexe ee Gunners
iyo Switzerland Granit Xhaka kaasi oo la xiriirinayay naadiga wadanka Talyaaniga ee Roma. Juve ayaa xidiga badan oo qadka dhexe ah la warinaya inay markan ka tagi karaan si lamidana waxay doonaysaa in ay hesho xidiga qadka dhexe ku fiican waxayna door bidaysaa ninka qadka dhexe kaga ciyaara Zezul Mario Manuel Locatelli iyo Salamada Granit Xhaka iyo Ramsey iyo Andre Rabiot la warinaya inay bixi karaan qadka dhexe ee kooxda Arsenal waxa ninka lagu magacaabo Emil Smith Rowe ayaa ogolaaday inuu heshiis 5 sano u saxiixo kooxdiisa Arsenal ee Kisbareys ayaa qoraysa sida laga soo xigtay wargeyskan waxay kooxda Aston Villa oo gudaha Ingiriiska ka dhisan ee heshiisyo badan ka soo gudbisay hay'adda kooxda Arsenal ayaa u aragta mustaqbal fog xidigan da'yar oo isku muujiyay dhamadkii xilciyaareedkii dhamaaday kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xiiso u qabta saxiixa qadka dhexe ee kooxda Barcelona Meridian Pjanic kaasi oo ku cadibanba garoonka Camp Nou tan iyo markii uu ku soo biiray kooxdan Barcelona wax qabad la taaban karo ma sameyn in uu gool dhaliyo xitaa iska daayay waxa ku dhib ahayd inuu garoonka soo galo taasna ayaana qoraysa markan in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay xidigan ay gacanta ku dhigi karto Manchester United gabi ahaanba way isaga hadhay bacsiga ugu jirtay ninka lagu magacaabo Jordan Aandehe Usmane Dembele sabab la xiriirida in xidigani uu dhaawac ku seegayo bilowga xilli ciyaareedka cusub taa oo ay sabab u tahay in Manchester United ay heli karto ama ay heshay ninka lagu magacaabo Jordan Sancho kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxay dalab rasmi ah ka gudbin doontaa goolhayaha Sheffield United Aaron Ramsdale marka uu soo laabto ama uu ka soo laabto tartanka Euro 2020 Sheffield Star ayaana qoraysa naadiga kubadda cagta ee Sheffield ayaa dib ugu laabatay horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska taasi oo sababaysa in kooxdani ay way karto goolhayaheeda heerka caalami ee xulka qaranka Ingiriiska naadiga wadanka Ingiriiska ee Liverpool wada hadal la hormar leh ay kula jirtaa FC Porto waxayna ka doonaysaa qadka dhexe Otavio kaasi oo ay u doonayso bedelka Ronaldo Kisbareys sida ay qorayso xidigii hore ee kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Ronaldo oo ku biiray Paris Saint-Germain ayay naadigan bedel u raadinaysaa tababaraha Roma ninka lagu magacaabo Jose Mourinho ayaa doonaya kooxdiisa oo keeno ninka qadka weerarka ama weerarkaba kaga ciyaara Manchester United ee Edinson Cavani ayaa 1 sano ugu daray United waxaana markan doonayaa in uu ku sii nagaado maadaama naadigan dib u dhis fiican uu ku sameynayo macallin Ole Gunnar Solskjaer dhanka kalena wakiilka ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ayaa la warinayaa in uu ka shaqeynayo sidii xidigan u sii joogi lahaa Turin ayuu ku walwalsan yahay sidoo xidigan ugu celin lahaa inkastoo la warinayo in xidigan ku sii jeedo horyaalka wadanka Faransiiska gaar ahaan kooxda Paris Saint-Germain Paris markan isku dhis ama isbedel weyn ka sameynaysa suuqa iyadoo la wareegtay ninka lagu magacaabo Donnarumma Ronaldo waxaana haatan la warinayaa in uu tijaabada caafimaad u marayo ninka lagu magacaabo Ashraf Hakimi qaybaha dambe ee muuqaalkan ayaan isla soo gaarnay saaxiibadeenna Bayern Munich ayaa la warinayaa in ay Liverpool iyo United u sheegtay qiimaha ay ku heli karaan ninka lagu magacaabo Kingsley Coman Kisbareys sida ay warinayso kooxda reer Jarmal waxay ninkan dul dhigtay 60 milyan oo euro sidii ay u heli lahaayeenba Manchester United iyo Liverpool ayaana doonaya garabkan xulka qaranka Jarmalka ka soo haray tartanka Euro hayeeshee Bayern ayaa ku adkeysanaysa in xidigan sii haysan karto haddii ay weyso lacagta uu qalmo sida laga soo xigtay Kisbareys waxay xidigan loo arkaa mid bedel u noqon kara ama ka garab ciyaari kara Jordan Sancho haatan ku biiri kara kooxda kubadda cagta ee Manchester United halka Liverpool oo bedel kaga dhigi karo booska Mohamed Salah ama Sadio Mane haddii ay xidigahani dhaawacmaan ama ay kooxda ka tagaanba ugu dambeyntiina saaxiibadeena kooxda Borussia Dortmund ayaa ogolaatay ama aqbashay dalabkii ugu dambeeyay oo naadiga kubadda cagta ee Manchester United ay ka soo gudbisay ninka lagu magacaabo Jordan Sancho ilaa iyo sanadkii hore labada kooxood ayaa ku dhibanaa in ay ka heshiiyaan heshiiska ninkan Ingiriiska ah da'yarkii hore ee kooxo badan laakiin ku soo ifbaxay naadiga Manchester City 2017 ayuu Ingiriiska ka soo dhaqaaqay isagoo aan cid garanaysa jirin hayeeshee haatan waa 100 milyan leh isagoo
dib ugu laaban kara gudaha wadanka Ingiriiska isaga oo ka ah xidig heer sare ah kaasi oo mucaashaqiin badan ay u saaxabtumi doonaan markii lagu soo dhaweynayo garoonka Old Trafford kadib markii tartanka Euro uu soo idlaado waxaad arki doontaa isagoo xiran fanaanada gaduudan ee naadiga kubadda cagta ee Manchester United ay ku ciyaarto warkaasi ayaa ugu waaweynaa wixii nagu soo kordhana si saacadaha ayaad u maqli doontaan waxaan ka codsanayaa in aad nagu dhiirigelito ama aad nagu dhiirigeliso warbixinada aan soo diyaarino oo aad page-kan ama aad ku soo biirtaanba channel-kan Madaali Isbooti oo aan ku soo bandhigi doono xogaha ugu dambeeya ciyaaraha muuqaalkiina waa naga intaa ee nabadgelyo